hambalyeeyo ciidamadan huwanta ah oo habeenkii saddexaad markii toddobaadyaan hadda la soo dhaafay aan dib u eego habeenkii saddexaad howlgalka ku jira wax badanna ka qabtay wax badanna ka bedelay magaalada sida qamarada iyo daroogada kala duwan iyo qoryaha sharci darrada magaalada lagu wato iyo shaqadii ay qabteen oo sida muuqato oo hufan u socota in ugu hambalyeeyo ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa waxaan leeyahay hambalyo waxaan idinku baaqayaa in arrintan sii wadaan dalkiina iyo dadkiina u shaqaysaan amni darrada iyo daroogadu waa laba shay oo dadka bulshada ah iyo dadka dhanba saameynaysa oo cilad weyn ah weeye daroogada waxay ka mid tahay dambiga koobaad markuu qofku isticmaalo dambi kasta ayaa u bannaanaa inuu galo marka si weyn ayaan idinku soo jeedinayaa inaad daroogada la diriirtaan si dadka iyo dhalinta yar loo badbaadiyo maskaxdooda iyo damiirkooda iyo dadnimadooda intaas waxaan idin leeyahay soo dhawaada hambalyo sii wada aad iyo aad u mahadsantihiin maamulka waxaan leeyahay labadiisa dhinacba in ciidamada gacan la siiyo la taageero oo energy loo sameeyo oo lala shaqeeyo oo la dhiirigeliyo oo waxyaalaha ay u baahan yihiin ka tiirsan baa idin soo jeedinayaa gudoomiyihii kale iyo maamuladii degmada wakiil uga halka jooga gudoomiye intaasaan kuu soo jeedinayaa anoo maartay raba inaad maamulada adigu wakiil ka noqotid in gacan la siiyo ciidamada iyo amniga iyo shaqadooda qodobka kale waxaan rabaa inaan meeshaan waxaa ka jira guddi ilaa 5 sano shaqaynaya 2007 la aasaasay magaalada Galkacyo wada leedahay oo anigu aan gudoomiye ka ahay oo u taagan nabadgelyo in laga shaqeeyo anoo ku hadlahay magacooda waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada amniga sugaya garab taaganayna dhinac kasta odayaashu ay joogaan iyo waxgaradku halka ana wakiil oga ah waxaan idinku boorinaynaa inaad shaqadan qabataan una madax bannaantiin dambiilayaasha inaad ciribtirtaan haddii alla idmo raalli baana ka nahay odayaasha wixii intaas aan ka mid ahayn ama aan codkaani anfacayn iyo bulshada qaybaheeda kala duwana digniin baan siinaynaa in ciidamada aysan ka hor imaan kana dabagelin dambiilayaasha dembi maxkamadaha iska leh markii ciidamadu amniga qabtaan maxkamadaha iska leh waxaa u madax bannaan in ciidamadu qabtaan maxkamaduhuna sharci ku qaadaan inta kaliya oo ummadda ku badbaadi karto intaas weeye oday iyo gabar iyo qofku nooc walba iyo ganacsade mid laga aqbalayo inuu dambiile ka daba ordo oo dambiile ku doodo oo dambiile loo soo daayo waxaan ka codsanay in aqbalin waxaa jooga maxkamadii gudoomiyaha maxkamadda galmudug ee gobolka asaguna maxkamadda dhanba wakiil ka yahay qaado maartay kuwa kalena geersi haddii alla idmo sharcigu ha sarreeyo amnigana hal qabto waxaan rabaa inaad fursaddan uga faa'iidaysto dagaalada ka socda magaalada Boosaaso oo magaalo Soomaaliyeed oo ganacsi ah runtii aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan ka codsanaynaa dhammaan ciidamada kala duwan iyo madaxda kala duwan in si degdeg loo joojiyo dagaalkaas ma ahayn runtii dagaal la filayay ma ahayn maanta waxaas wax dadka Soomaaliyeed ee dhagahooda aqbali karaan indhahooduna ay arki karaan shacabkii oo qaxay iyo dib ka soo cusboonaaday ma laba aqbali karo waxaan ka codsanaynaa in la joojiyo ismada ku dhawaaqay oo waawaanta wada oo xabad joojinta wadana iyagaan garab taagannahay iyagaan la midnahay iyagaan kala shaqaynaynaa wixii aragti ah waxaan codsanaynaa madaxda kala duwan inay hoggaansato xabad joojinta la dhaqan geliyo shacbigii meesha lagu soo celiyo intaasaa madaxda kala duwan oo madaxweynuhu ugu horreeyo aan ka codsanaynaa inuu u dulqaato oo maaragtay asagaa meesha dawlad ka ah oo madaxweyne ka ah inuu u dulqaato oo xalliyo dhibaatooyinka u soo jeedinayna caawa ay taariikhdu tahay 22 bisha 12aad 2021 waxaan runtii u hambaleynayaa shaqada ay hayaan ciidamada booliska iyo nisa iyo ciidamada isku darka ah ee Puntland iyo Galmudug runtii waa arrin horey looga shaqeeyay una socon jirtay maalmahana shaqadii ay hayseen ee aad muqaadaraadka iyo waxyaalaha soo qabateen oo kaga macnaynaa ka maamul ahaan waxaan runtii ka tarwaynaa cadeeyo caaway ciidamadu waxay u amran yihiin horena aan u amarnay cid alla ciddii dambiilaah nooca rabtaa noqoto in la soo qabanayo ciddii ka daba timaadana ay la mid noqonayso ma ogolaan doono qof inta dambi gala asagoon aysan ka dhammaysan ciidanka boolisku xogtii ay rabeen laga daba yimaado ciddii ka daba timaada
dembiil noqonaysaa waayo xogtaas ama waa lagu soo daynayaa ama dembiilii la raadinayo noqonaya laakiin laga hor dhac ma rabno shacabkana waxaan ugu baaqayaa gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo waxa laga shaqaynayo oo ay halkaa u taagan yihiin oo har habeenkaasoo dhan u soo jeedaan habeen hore 8 saac habeennimaan wey waxay dhaxantaa u joogaan waa dantiin ma aha dantoodii maaha kaliya waa tiinii ammaankiina rabaan inay sugaan wiilka yarkaa oo qoriga wata ama khamriga iska cabaya ama xashka cabaya bay idinka safaynayaan iyo tuugada waxaa rabaa inaad soo dhawaysiin haddii ay wax u baahdaan aad la garab gashiin guryihiinna markay yimaadaan aad wax walba u fududaysiin adinka intaasaan idin faraynaa ciddii fududayn weydaa oo iska raadisa waxaysan hayna dee waxay la mid noqonaysaa dembiilihii ayadaa dembi gelaysa waayo waxaa laga yaabaa inaysan dembi lahayn laakiin intaas dembi ku gelaysaa waxaan kaloo mahad celinayaa suldaanka iyo wasiirka iyo xildhibaanka oo runtii ayaguna maalmaha oo dhan kana shaqaynayey nabadda gaalkacyood iyo nabadda gobolka mudugba waan kaga mahad celinaynaa run ahaantii kulankan caaway farxado waaweyn uu daaran yahay ficilo la sameeyuu daaran yahay gaalkacyo meeshay caawa joogtuu daaran yahay waxa weeyaan mar haddii amniga la sugaayo ay u midaysan yihiin oo garbahayga taagan yihiin saraakiil puntland iyo galmuduga oo ammaan wada sugaysa marka laga soo tago farxadda iyo guusha ay leedahay haddana wasiirnimada aan ku hadlayo waxay noqonaysaa wasiir galmuduga iyo kii puntland labada aan ku hadlayo in nabadda sidaas loo wada sugo oo aan ka gudubno qaatil deegaan inta wax ku sameeyey lagu eedeeyey in deegaanka kala qariyey inaan caawa aysan jirin oo aan markhaati iskaga naana wax ilaahay looga mahad celiyo weeye raggii arrintaa ka shaqeeyey oo lafdhabarta u ahaa waa saraakiisha iyo madaxda garbahayga taagan dhankay doonaan ha joogaane ayaguna matelaya aadaan ugu mahad celinaya taariikhdaa idin xusaysa howlgalka kan daraagyada aad soo qabateen iyo shaqada aad qabateen iyo hufnaanta aad samayseen iyo unixidda aad samayseen xalay operation hawsh xalan wax uga jiray waxaan aad ugu ammaanayaa xitaa amarka ciidamadu dishibliinka iyo gacan macaanida ay kula dhaqmeeyeen goobaha dadka amrayna dadka waxa badanaaba dhacda waayahan daba dhacda markii ciidamo meel loo diro dadka way isku daraan way handadaan gacan aday kula hadlaan afkii aad kula hadlayseen iyo gacantii aad shacabka marinayseen iyo soo jiidashadii bulshada aad tusayseen inaad dadooda ka shaqaynaysaan waxaanu markhaati iskaga leh xalam waxaana lala daba joogay baraambur iyo shacab wuxuu ku yimid dishibliinka iyo nidaamka iyo xaragada aad ula dhaqmayseen Soomaalidu waa gobtuna wanaagga waa garataa marka aadan kaga mahad celinayaa saraakiisha waxaan leeyahay puntland nooga timid hadda waxa weeye wada jirka iyo wada shaqaynta guusha aan ku gaarnaan u jeednaa shacbiga iyo madaxda iyo salaadiintuna sidaas kale in ku mahad celinayaan gacmo wada jiray wax ku gooyaan guuleystana waan idin leenahay